السلام عليكم guys وأني سلامي welcome back فيديو عصب maanta waa subax isbitaalkan joogaa waxaan maanta videoga ku saabsan yahay productive day timekeena maanta waxaa maximum use ku sameynaa like 1 minute ma istigreynaa next week exams ay soo socdo so I'm trying to make maxaa to the best out of every minute low presentation I was supposed to have one maxaa to last week now mid sameey ahayd because dhakhtarka aku present karena is very lousy, he's very lazy. Last week Muslimani, now I have to do labadooda at once. Anyways, حالا diarrhea, محل هاي تحل ما أصجي وقرأي. I have low patient, labadooda وحوالي needing swine, الميري swine 28 days care, and one of them فوق neonatal sepsis or infection كإيمها. So كاس محل هاي so عالي onset neonatal sepsis وحده وخبا neonatal sepsis كلاوسي كلا infection إيمها كده مد عالي يمد محل هاي late مد عالي وحوالي 72 hours أو قريب كل عمره إشتى على وقت هاي مسكر مد كلاتنا وحوالي after 72 hours على وقت so this guy عمره محل هاي تو مركو دشيس لمركي the second day محل هاي على وقت infection كا anyway second day infection called okay then highlights halkan keenay so aniga markuu dhashay maxaa la haydo breastfeeding muslimin naas manuuqeyn qanda iska haysay cunuga he started maxaa la haydo wuxuu bilaabay convulsions qalal ama like that thing like he started convulsing because maxaa la haydo ana dus xabiilin oo maxaa la haydo waxuna that means hypoglycemic oo jirkiisa malaha glucose malaha so glucose aan that you're going to start maxaa la haydo convulsions aku dhacay anyways convulsions iyo haysta markii la keenayo glucose horexia then maxaa la haydo I started clacking him then maxaa soo ogaaday inay tahay early onset ka marka oo maxaa la haydo 72 hours ka hor dhacdo then the reason oo maxaa la haydo according to me hadda history-da soo helay iyo su'aalaha soo weydiiyay waxaan u maleynaa because hooyada waxay ku jirtay foosha waxay ku jirtay 24 saacadood ka badan foolanaysa and then maxaa la haydo biyaheeda waxay dilaaceen like waqti hore then maxaa la haydo infections ay haysatay marka cunuga uurka cusubay iyo like one day intaas cunuga record infection ay haysatay so maxaa soo dhan waxaa risk factors ama waxyaabo la sabab u noqon karo ama waxyaabo sabab u noqon karo in cunuga maxaa la haydo ku dhacdo infection asoo sayris neonatal sepsis ay ku dhacdo anyways presentation ka sameeyna kan kaleetana maxaa la haydo cunuga kaleeto he has waa premature way cunug ku dhashtay 7 bilood way hadirtan wuxuu jiraa 3 maalin jiraa 3 maalin soo jooga 7 bilood ku dhashtay waa very tiny waa yaris way wuxuu qabaa jaundice korkiisa dhan yellow way daartid birth weight kiisa waxa waay 1.6 kg so very low weight kiisa masaaid u yahay maamadaas uu cunugaas dhashay oo premature ama dhaaska had kor loo cunug ku soo dilmeen iyada dhan bulay cunug dhan walinaysan laba ka soo dilmay taxbad kasta xadka waxay taaganta waaba miracle waa inuu dhashtabo sababta oo ilmaha uu soo dhacay waxa waay waxay haystaa cervix ama meesha ilmaha soo maray markay dhalanayaan waa dilated way the whole time waa iska furan tahay way ka dabacday macna so cunuga markuu ayaan joogo bila joogo oo culays noqdo like wuu soo dhacaa because meeshii wax isku celinaya mal waxa waay open iska taa cervix open iska yahay wax celinaya malahan meena kamera digta haysa gacanta idaalin anyway cunuga marka premature way صدق أسبوع قدشتي كوركيس دا في ديسيد وايلو then maxaa la hypothermic way qabob way like temperature kiisa waa 37.8 35.8 way temperature kiisa that's very low maxaa la hayto asaga dhan he was shivering so incubator ka galiyay and also phototherapy way iswataa labada machine incubator iyo phototherapy so meesha la xigaliye then waa kala gareeyay inshallah kala gareeyay so xal dama ka shaqeynaya asiniga case kiisa and I'm going to present maanta and so presentations can be stressing me ما فهمت المسكحلية like حال ما بدي أسكت I'm going to relax next week exam is so but anyways I'll be like less stressful yeah محل هاي تو وحايدة من examinations كسو سمينا أنا كبرستيش كسو دم يسوع لعملنا so see you guys Okay, welcome.
You had a very long plan. Cafe is not okay. So, the other thing that I mentioned was finally we're sort of made presentation so I'm so exhausted حلقة نصيحة نسوي وديارنا that presentation so now حضرت أنا كان start الحمد لله بكراكي هاي تبكي نقرأ so خلينا هاي then after that محل هايتو وحاليا هاي lecture لنا هاي another presentation actually lecture احتماعا وضد كل presentations كسميناهن لكن إنا جونا ودي سنو presentation كذا أتمكرنا and then after that هذا بس hello I'm going home relax and start محل هايتو رايت أبسكي وحسينا أخرى anyways هو كذا meesha maxaa yaalo case cunug yar oo 3 jir ah markii sideedaad uu dhig loo shubaayay maraysa wax yar kadib waxay leeyahay HP-geedu zaid u dhacsan hadirtan shalay waxay leeyahay HP-geedu maraayo 2 labo HP-geedu maraayo that is extremely low ila hadda ma leeyahay waxa sababay HP-geedu inuu sii soo dhaco qasab waxa ka dambeeyo something cudur ka dambeeyo wax HP-ga sidaas u leeyahay waxay u badan yihiin cudur la dhaho sickle cell anemia oo dhiigga ku dhaco abeedna wuxuu yiri ma qabto hadda ka hor laga baaray laakiin waxyaalo kale keeni karo liver disease inay qabtaa laga yaabaa malaria waa laga soo baaray because waxa laga yaabaa inay qabto severe malaria ama malaria zaid ku xun waa la soo fiirinayaa haday B falciparum tahay waa mid zaid ku xun childhood leukemia waxa la dhaho inay qabtaa laga yaabaa oo ah kansarka dhiigga ku dhaca oo ilmaha yar risk inta badan ku dhaca so baaritaano loo dirdiraya si kasal xitaa waa laga soo baaray because ninkan inuu iska sheegaya laga yaabaa maybe aan sameyninbo so sickle cell kala soo hubinaya and then we do liver function tests sal sameena barkeeda lagu ogaanayo sida uu shaqeynayo inay wax ka qaldan yihiin It increases the fetal hemoglobin. It doesn't have beta hemoglobin, it has gamma globin. And the beta hemoglobin is where mutation. So you change the beta one to gamma, something like that. Hydroxyrate, it increases the formation of fetal hemoglobin, which has alpha or gamma globulin. Reducing the beta globulin. So if the beta is not there, then this kid won't get the sickling madax. WBS can hide somewhere like what type of disease they want to show. Hey, leukemia coffee. imaaday lixdii bara la marooya rasha iska soo dhigay soo kala kiciyay coffee qac ka soo siiyay soo ashqaysana hadirtaan I'm going to get to work waxa qarsa galaya ilaa iyo adi cabara akhrinaya maghribku xira ka dhiman maghrib marka tukada kadib oo soo laabana hadana adi maybe ilaa iyo 3 saac 4 saac meelaas camal then waa ka sii dhacaya maalinteedina xagga isku dhamaanaysa so thank you for watching